sida aad maqlayseenba fanaanka xuseen shariic iyo aljecel hees uu sameeyey ayaa waxaa lagu qoray abwaa lagu magacaabo Douglas waxaana laxanka saaray ay isla qirteen Mustafa Kiko. Hadda Mustafa Kiko waa kuma heestaasi xuseen shariic iyo aljecel uu sameeyay uga marqaati kacaya waxaa qadka telefoonka ee Denmark aan kula xiriiray fanaanka Cabdirasaaq Maxamuud Salaad Cabdisaaq Alteso. Alteso haddii lagu weydiiyo Mustafa Kiko waa kuma maxaad ku jawaabaysaa? Mustafa Kiko waa nin la xamiista ah oo saaxiibkay walaal isla qaano laakiin Mustafa Kiko aad u dib badan yahay maadaama anigu uu hees hadda ka hor ii dhiibay heestaa ugu jeclahay oo la yidhaahdo garabkayga bidiisiyo wanaiga geesbaad gelalay kumaasho gawahaad ku culatee gamaanaha habeenkii wadawayga guudho hada kula garamaya oo guureed bahalays raadkaadan gobayo gabaldaya sidiisii kusoo gantoodo gardarada waxaa qabana cashaqaani galaye tugoon أنا كوكا بس طايل زي متصنف لي هذا وأنا وأصحاب عن هين بس أصلا وحامره هذا الحالي كلي هذا محمد عبد العزيز تنقو الله وايه لكن مو الشيء إنه أصلا اللي يعيش أنا مكوي دي وايه إنه أصلا اللي يذكر يعني إنك مصطفى اللي هذا فهمت وايه بس صراحة أصلا الحالة لكن مرا أصلها مرا سنقو بالها marka maxay xuseen shire ciyaar jecel waa nin heeso asaga samaysto aan kaan u qaano waaya oo lacagtiisa samaysto oonan maxaa la yiraahdaana aan maxal dhahaa dad kalena aan laxmadooda qaadin intaan ku ogaa waaya Mustafa waa wiil walaalkeeda waxa fiican waxa uu runta walaal laga hadlo waaya waaya marka maxay kula tahay waxaan balwad maxay uga noqotay Mustafa Kiko erayada dad kala sameeyay isaga sheegto inuu qof kale ku qoro balwada noocan maxay tahay kula tahay wallahi balwad waxay ka noqotay ma fahmin laakiin waxa fiican inuu aliisti laxankiisa walaalkay uu ku ekaado ana oran lahaa ma fahantay waaya uu mirihi uu qofka leeyahayna uu sheegto sida dejiyo kale Douglas lahaa ma fahantay waaya hasa samata uu qaado in heesta oo heesaha oo dad fanaaniinta iskugu dhiibaa Mustafa dadacada ka noqotay waxaan heestu ani walaalka ii dhiibay oo asxaab ahaynan fahantay oo ni daa match will loo yiraahdo walaalaha fanaan uu dhiibay fahantay heestan hadda caaw ku qaadayay ha marka wuxuu sameeyaa heesta uu ku dhiibi haddana qolo kale uu sii dhiibay malacag buu ka qaata marka ku siinay heesta malacag uu ma iibsadaa ma yaan lacag ma qaadan been kama sheeg karo lacag ma qaadan walaalnimo asxaabna iyo codkii uu jecel fanaanimada jecel weeyaan meelay dadka lacag qaata dadka fanaanimada cod leena jiray ha laakiin fanaanimada isku bani ma aha fanaanimada waxa jiro anigu heesta aan qaado ana lacag leeyahay daraa macluumaadka la yituma dadku sheegay waaya fanaankii abwaankii ama fan hadda waxa ku sheegay aan aakhiri adduun minna ma sheego waay anigu hees ana inta liidiibo laxanka lacag kama dhiibi karo muslim lacag kama dhiibi karo waa aakhirayda adduunkii baa ku halaagamay aakhirada ku darsan karaa waayahay abwaankii ama fanaankii ugu xishoodka badnaa fanaaniinta xuseen shariic iyo aljecel inuu caawa ka qaylisiya Mustafa Kiko maxay kula tahay oo fiican oo aad u ixtiraam badan oo heesista soo sameeysto laxmiisna leh aad loo ixtiraamayo waxaan ku jeclahay dabeecadu leeyahay nin daacad ah aan inta ka aqaano inuu ka qaylisiyo ka war caawa maxay kula tahay waxa qayle ninka inuu Mustafa qaylisiyo ha oo hees uu maruudiis u sameeyay oo xuseen shariic kaasna wuxuu ahaa fanaanka Cabdirasaaq Alteso oo qadka telefoonka igu waramay isagoo joogo magaalada Copenhagen ee dalka Denmark mahadsanid